يبي عيدن كنا بسوقي الدولة قولت كالصومالية دي جبلان الدقمة بلد حابي قول كجذ سيدا وركن كفا فاهنا يو عبد النور عثمان عبدي سرقال كان كترسان كوحد الشباب أيا اسكو سو ديباي عيدمada nabadsuugida ee dalgoboleedka Jubbaland ee degmada balad xaawo ee gobolkani Gedo isagoona watay qoriga AK47 waxaana sargaalkan ka tirsanaa kooxda al-shabaab la soo gaarsiiyay degmada Doolo Soomaaliya taliyaha ciidamada nabadsuugida ee gobolka Gedo Cali Xasan Deer ayaa ka warbixiyay sida uu sargaalkan isku soo dhiibay isagoona dhalinyarada kale ee ka tirsan kooxdaasi ugu baaqay inay ka soo baxaan al-shabaab ilaahay ba maadsan allihii fursadana makaniyay saad arkaysaan meeshan waxa isku soo dhiibay oo xalay gacantanada saaka alasaydi soo galay nin sargaal ah oo ka soo galay kooxdii khawaarijta shabaab ka soo galay ayaa is soo dhiibay waad u jeedaan sida ka muuqato ninkan waa nin sargaal oo shabaab ka tirsanaa muddo ka tirsanaa laba sano dhowr sano intaas sano ka tirsanaa area iska soo dhiibay area tuulo barwaaqo ayuu iska soo dhiibay way soo daba socdaan sida aad arkaysaan duurkan waxba kama jiraan waa ku rafaadeen sidaas daraadeed maanta kaliya quruxda iyo loo soo dhaweeyay habka loo soo dhaweeyay waa waxaan la qiyaasi karin waxaan idin sheegaynaa marka dalkiinni iyo dadkiinni baa idin baahan nafta ha u keenina wadooyinka ha ka jarina dhibaataynina ha qarxinina aakhare adduunba wax faa'iido ah aad ku heleysaan ma jirto aakharana naar baa idin dambayso adduunkana rafaadkan baa idin dambayo waad ku dhibaataysantiin aadan Ibrahim oo kamid ahaa kooxda al-shabaab ee isku soo dhiibay ciidamada nabadsuugida ee degmada balad xaawo ayaa ka waramaya sida uu isku soo dhiibay iyo soo dhaweynta loo sameeyay sidoo kalena ugu baaqay saaxiibadii kale ee ku harsan al-shabaab inay ka soo baxaan magacaygu aadan Ibrahim waxaan walaalaha maanta ku soo dhimay oo walaal wanaagsan aad bay soo dhaweeyeen xalay ay shalay sagaaltan soo baxay saacadan saacadii dhexdeeda gaaji iyo dhib iyo rafaadka ay waxay